haweeney u dhalatay dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo Gosiama Sitole ayaa 10 carruur ku umushay isbitaal ku yaala dalka South Africa. Gosiama Sitole oo 37 jir ah ayaa ku nooleed gobolka Pretoria ee dalka South Africa. Gosiama Sitole waxay rikoor ka dhigtay dunida inay ku noolnahay. Gosiama waxay warbaahinta u sheegtay inay carruurteedu bad qabaan, sidoo kalena aysan iyadu dareemaynin wax walwal ah. Anigu waan caafimaad qabaa, sidoo kalena carruurteyda 10kooduba way caafimaad qabaan. Sidaas ayay warbaahinta la wadaagtay. Gosiama Sitole ayaa rikoor waali ah ka dhigtay dunidan. Ma jirin haweeney hore u dhashay 10 carruur ah marka laga reebo Halima Ciisa oo u dhalatay dalka Mali, taas oo bishii ina dhaaftay 9 carruur ku umushay isbitaal ku yaal dalka Morocco. Halima Ciisa oo 25 jir ah ayaa hal mar 9 carruur ku umushay isbitaal ku yaal dalka Morocco. balse rikoorkaasi waxaa ka jabiyay Gosiama Sitole oo isniintii aynu soo dhaafnay 10 carruur ku umushay isbitaal ku yaal gobolka Pretoria ee dalka South Africa. Carruurtan 10ka ahi 7 kamid waa wiilal, halka 3 kalena ay yihiin gabdho. Dhammaantoodna way caafimaad qabaan, sida ay sheegtay Gosiama. mid kamid ah dhaqaatiirta wax ka umuliyay Gosiama oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan wax dhiba ka marin umulinta Gosiama iyo 10ka carruurka ahba. Gosiama ayaa ku biirtay buugga Guinness World Record, kaas oo dunida wax looga qoro. Ma jirin mana dhicin dunida haweeney umushay in ka badan 10 carruur ah, waxayna sidaas rikoorka ku gashay Gosiama. Warbaahinta caalamka ayaa hadal haysa arrintan. Waxaa sidoo kale qaadaa dhigaya warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka South Africa. Arrintan waxaa soo qaatay dhammaan wargeysyada caalamka iyo warbaahinada ka howlgala dunida. fadlan daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan, subscribe saar YouTube channelkayga, sidoo kale ha hilmaamin inaad gambaleelka furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe ee aan soo geli doono halkan. sidoo kale ha hilmaamin inaad muuqaalkan sii share gareyso, like-tana raaciso. sidoo kale ha hilmaamin inaad asxaabtaada videogan la wadaagto haddii aad ka heshay. mahadsanidin daawadayaal.